Audio Jungle. gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ambassador cali sayid faqi ayaa dalka dib ugu soo laabtay maanta iyadoo halkaasi si weyn ay ugu soo dhaweeyeen xubno ka socdo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed. xubnaha dowladda federaalka ka socda ee gudoomiyaha halkaa kusoo dhaweeyay elboor kusoo dhaweeyay waxaa ka mid ah wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xamza iyo xubno kale oo ka socday dowlad goboleedka koonfur galbeed. gudoomiyaha baarlamaanka labaad koonfur galbeed ambassador cali sayid faqi ayaa safar dheer u galay wadanka Mareykanka xaalada caafimaad oo la soo darsay aaweeda kadib bishii hore markii uu haleelay xanuunka COVID-19 iyadoo lagu daaweeyay dalka Ethiopia magaalo madaxdiisa Addis Ababa halkaasoo daawo fiican uusan ku helin. wararku waxay intaas ku darayaan in gudoomiyaha cudurka COVID-19 uu ku reebtay xanuun aad iyo aad u xun oo dhanka sababaha ah taasoo aysan u suuragelaynin inuu ku nagaado halka xaruntiisii Baydhabo ay tahay xafiiska ugu yaalay. gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ambassador cali sayid faqi ayaa laga dareemayaa muuqaalkiisa xanuun bukaan socod ah wuxuuna gudoomiyaha safaro badan oo hore iyo gadaal ugu socdaa dalka iyo dibadda iyadoo aan la garanaynin hawsha uu u hayo koonfur galbeed. shacabka reer koonfur galbeed ayaa waxay aad u dhaliilsan yihiin howlaha dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee uu wado gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed oo u muuqda nin ku fashilmay siyaasadda koonfur galbeed.